wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn xaaladda bariga dhexe aynu barnaamijka ku eegaynaa. indhaha caalamka oo dhan waxay ku jeedaan dalka Switzerland. halkaa waxaa ku sugan wafuud ka socota Maraykanka iyo Iiraan. saacadihii lasoo dhaafay halkaa waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan oo uu xubin ka yahay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan. waxaa sidoo kale halkaa ku sugan oo iyaguna gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka, ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo madax kale oo iyana ka socota dowladda Qatar. ujeedada halkaa loo tagay heshiiskii isfahamka guud ahaa ee la saxiixay, sidii heshiiska tafaasiishiisii loo sii wadi lahaa oo heshiis dhaba looga dhigi lahaa. dhowr qodob oo muhiima miiska saaran. waxaa lagu heshiiyey in dagaalka dhinac kasta la joojiyo ayuu isfahamka guud yahay. sidee marka loo joojinayaa dagaalka Lubnaan? Iiraan maxay rabtaa? Iiraan waxay rabtaa inay nimankanu iskaga tagaan dhulkan iyaga malahane ka baxaan si dagaalka loo joojiyo. Iiraan waxay mas-uuliyadda iyo damaanad qaadka Xisbullah iyo damaanad qaadaysa ay leedahay hadday nimankan xuduudkooda ka gudbaan wax dagaala ma qaadi karaan Xisbullah. Maraykanna marka maxaa laga rabaa inuu nimankanu meesha ka saaro. Maraykan dema wuxuu ku adkaysan doonaa Israa'iil gudaha way joogaysaa laakiin xabad ma ridayso. marka waxyaabaha diitaliska ah oo hoose ayaa meeshan lagu dhammaynayaa. macnaha heshiiska qalfoofkii guud waa lagu soo heshiiyey, waxaa la yidhahdaa isfaham guudaa la yidhahdaa. laakiin isfahamka hoose sidee wax noqonayaa? lacagaha Iiraan ka xaniban ee la sii daynayo ma hal maraa la sii daynaa, ma dhowr maraa la sii daynaa? marinbiyoodka Hormuz sidee maraakiibta loola macaamilaa? in la furo waa lagu heshiiya qaabkee? waxaasoo dhan waay marka waxaa la rabo in heshiiska kama dambaysta lagu soo xoro. Trump wuxuu saxiixay iyo waxa madaxweynaha Iiraan saxiixeen waa mabaadi'da guud waay. guri aan dhisano haye camal lagu heshiiyey. guriga see loo dhisaa? meeqa qoluu noqonaa? imise masquuluu yeelanaa? albaaba meequu yeelanaa? dariishad alaabtaas waay marka waa isla fahamnaa umalaynaa. marka alaabta meesha loo kulansan yahay sheekadaasu marka waa sheekadaas. waana suuragal in laysku khilaafo oo macnaha diitaliska iyo sida wax loo kala horumarinaa in laysku diido waa suuragal oo baashu adkaato. inay iska fududaatana waa suuragal. haddaba markaan idi tuso Qatar ayaa goordhow waxay sheegtay ayaa leeyahay in si rasmi ah uu bilowday shirkii ka dhacayay deegaanka la yiraahdo Lausanne ee ku yaala Switzerland. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar goordhow war ay soo saartay waxay sheegtay in shirkii uu ka furmay Lausanne ee Switzerland. waxaana la sheegay in kulamada ugu horeeya ay dhex marayaan Washington iyo Tehran iyo labada dowladood ee dhexdhexaadinta sida Qatar iyo Pakistan. ujeeda marka shirkii waa furmay. muhiimaddu waxa way maanta ahada in shirku furmo, labada wufuudna ay arinta marka falanqeeyaan. dhexdhexaadiyaasha fadhiya Pakistan iyo Qatar nimankii waa wada kulmayaan marka kulanka halkaas waayay. marka intuusan kulanku furmin ka hor dhinac walba marka wuxuu sameeyay kulamo gaargaar ah. macnaha dhexdhexaadiyaashu waxay la sii kulmeen dhinac kasta. arrinka inaad fududaysaan la ka rabaa, inaad bal waxalisaan, mid walba gooniya ula kulmeen dhexdhexaadiyaasha kadib ay marka labadoodii kulanka u fureen. haddaba marka ugu horeysa waxaa kulan uu dhex maraa leeyahay Iiraan waxay sheegtay inay kulan la qaateen Qatar iyo Maraykanka. telefishinka Iiraan waxa uu sheegay in kulanka Iiraan iyo Qatar iyo Maraykanka uu ahaa arinta ku saabsan sidii xabad joojin dhammaystiran loo gaari lahaa. Iiraan lacagaha ka xaniban loo sii dayn lahaa iyo waliba qaabka iyo sida wada hadalladu u socon karaan. marka kulan oo doceed ayay Qatar waxay isugu yeertay labada dhinac dhagdhag inay kala tuurto.
dhanka kale Bakistaanna waxay aadeen iyaguna markooda dhanka kale aadeen. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Vance ayaa wuxuu sheegay isaguna inuu kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo taliyaha ciidanka Pakistan ninka la yiraahdo J.D. Vance madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa waxa wada hadalladaasi la qaatay madaxda Pakistan Shahbaz Sharif iyo taliyaha ciidanka ninka la yiraahdo Qasim Munir waxaana kulankaasi uu ka dhacay hotel ku yaala goobta shirka uu ka dhacayo ee dalka Switzerland. marka nimanka dhexdhexaadiyaasha marka waxay ciyaarayaan taktiig ciyaarayaan inta aan marka hore la isku imaanin marka hore in la is arko kadibna kulankii uu furmo si marka baasha loo fududeeyo. haddaba nin ka mid ah dadka ka socda wafuudda dhexdhexaadinta ee dowladda Qatar oo la hadlayay Al Jazeera ayaa goordhow sheegay wuxuu leeyahay arinku waa wanaagsan yahay waxaan marka hore ka shaqaynaynaa uu leeyahay qodobada siday u kala culus yihiin inaynu dib u dhigno midka culus xoogaa gadaal aan geeyno midkii markaa fudud oo laga hadli karo inaan marka hore dhamayno kan ku xiga dhamayno midka culus si aan marka gadaal tafaasiishiisii aan u geyno. laakiin taas marka wuxuu leeyahay mararka qaar culays ay imaanaya. hadda Iiraan oo kale waxay number 1 ka soo dhigtay Lebanon xabada ku socota nimankii Yahuudda way ku dhex jiraan anytime uu Netanyahu diyaarada ku duqeyn karaa arrinka maxaa ka tiraahdeen Mareykanku marka taas waxay leeyihiin Netanyahu shaqaan ka qabanayna oo waa ku maqannahay dib ma noogu dhigi kartaan iyo maya marka arrimaha noocaas oo kala ayaa markii horeba meesha marka xogaa arrimahaas ka jira. haddaba marka kullay wixii tafaasiila oo ka soo baxa sheekadaas waa la socon doonaa oo waa arki doonaa. waaye sheekadii marka waxaan u noqonaynaa Netanyahu iyo Trump meel xunaysii maraysaa nimankanu xaalkoodu ma fiicnaan leh. hadda marka waxaa soo dhex galay madaxweynaha Israa'iil soo dhex galay oo baryaaya Trump sheeka idin ayaa baad ninkii Netanyahu gacanku gambad wixii la yiraahdaba ninka Trump Netanyahu saan waaye waxbuu ka hayaa kan waaye ninkii Trump waa soo jeest marka hore markaan idin tuso mucaaradkii Israa'iil oo hadda madaxa soo qaatay kadib markii taageero toos ka heleen Trump doorashada soo socota oo dayrtan dhacaysa ninka Netanyahu la leeyahay iyo kooxdiisa in hawada lagu qaramsada rabaa. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay haddaba Al Jazeera waxay leedahay Washington wali waxay sii wadaa inay la hadasho oo ay la xiriirto mucaaradka Israa'iil iyadoo ay jiraan wararka sheegaya in la doonayo in la bedelo oo meesha laga saaro Netanyahu. haddaba telefishinka Israa'iil ee la yiraahdo 12 ayaa wuxuu sheegay maamulka Mareykanka inay xiriiradoodu ay socdaan mucaaradka Israa'iil ay la leeyihiin si markaasi fursad weyn ay u helaan mucaaradka sidii loo bedeli lahaa xukuumadda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu. warkii ma u jeedaan banaanka u imaaday waxa la kala qarsanaa male inaan ku bedelaan rabaa leey mucaaradkiya toos loola hadlaya mucaaradka inta la isugu yaro 45 nin ugu waaweyn mucaaradka tameel la isugu keenaa lala hadlaya Mareykanka. Netanyahu afka ma kala qaadi karo maxaasaan u sameeyay ma dhihi karo waxay leeyihiin adigu meel joog soo lagaama wayn odaga warkiisa yeer soo lagaama wayn adaa lagu bedelay waxa la yaab leh laakiin adduunkan fiiri adduunkan aan ku nooshahay waliga hadaad xaq darro sameeysid marka dambe waa kugu qalloocane ninkan waa ninka ku booteen jiray tagyiira ku sameeynayna isbedel maamulada hadda jira ee carabtan iyo waxan iyo waa wada bedelayna war waa wada bedelayna ma ka joogto markii dambe hadda maxay mare asagiya leeyahay waa ku bedelayna adeer asagay ku timid fiir marka xaal halkaas uu maraya marka sheekadu markay halka joogto madaxweynaha Israa'iil marka soo galay madaxweynaha Israa'iil marka warkiisu waa war odayeed
ورنتنياهو وشخصي رجل الله سعودي حكومة كجرنا وإيانا وأشخاص وهدد واي هحمادان أما هفعنادان لكن مريكانو ترى مو وحنكا عدسانينا وحي نقد حيي ايوينا العليا مال عدلها هنا دقننا نكا وركيس وعديها نتنياهو إنو دفاع ما وحو دفاعيا صاحب تنمداني وإنو وذا حاجود الباب كحرين هاي إسرائيل مريكان أفريسانا maxaa naga qaldamay maxaa qaldan ninkii qaldan waa iska saari karnaa laakiin yeynaan baashu meel xun la tagin u leey waxa ka garanay marka xaalku meeshu marayo madaxweyniga qaylinaya Israa'iil haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray madaxweynaha Israa'iil ayaa wuxuu sheegayaa in marka walaac ku saabsan dhanka Mareykanka oo sharciga ah ومد وحوليه هلا أقبل كرو معناها مريكا كوحة وكعبنا يوم معناها وحلا أقبل كر عمل هذا بقى ورئيسي أوسيي تلفزيون كلي هذا فوكس نيوز اللي قال يدرك مريكا كا مدحوينها إسرائيل نكلي هذا ساك هورسر أياسي إن وذا هذا اللي يسوع مريكا كا وكرر عيو ونقضى مد الباب بدأ أحرن وأنا إنه نقضى مد markaasi si daacad oo laab furan ay dhinacyada u wada hadlaan oo wixii dhacay la xalliyaa wuxuu raaciyay waxaan nahay saaxiibo dhow daacad ah oo u heelan Mareykanka waxaan ka wada shaqaynaynaa sidii loo hubin lahaa in Iiraan aysan helin wax awood nuclear ah ama aysan gaarin heerka ay ku heli karto nuclear wuxuu sii raaciyay waxa laga yaabaa inaan kala duwanaano ra'yiga annaga iyo Mareykanka laakiin waxaan aaminsanahay in soo jeedinta walaacyada sharciga ah ee Mareykanka dhankiisa ay markaa tahay mid sax ah officer ninka marka waa qaab odaysan u hadlay aan meel isugu nimaadno aritan si hoose aan gacmaha si hoose aan u dhaqnamayno si hoose aan baasha u dhaqno waxa aad tabanaysaan waa garanaynaa waa saxantiin cabasha qabtiin heshiisa soo gasheena la idin daba maray waxa dhan waa ogna laakiin wax walba waxa ka weyn saaxiibtinimada iyo taacadnimada uulay ninka marka maslaxa guud oo galay madaxweynaha waay Netanyahu waa u jeedaa si toos ah mucaaradka inta meel la fariisista la soo hadla